سيد الأنبياء فوق البراق سريعا في رحلة الإسراء. وحين تم الوصول في القدس صلى الرسول وكان خير رفيق للمصطفى جبريل. صلوا على المختار يحاط بالأنوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سلام كدب طبعا في جامعة وحواي وحي مرارك قارن جرا أما مناسبات كدينية أما في جامعة كمثال وعدوكتنا دقراسنا اللي نقصوا بحي معلمين اللي عذر داري أو اللي يري معلنا ستوب أنت كوجوج وما سنتها جحوي سكعب يعني أرضينا الوحالة اللي سبقا وكوجوتين ودليل وكوجوتين أن شدك الله سفيه أياك غير قادميس لوضو اللي سودرين مهم واي كاسبقا ومعلم وكوجوج حسابتنا الأكاديمي قال مهم واي ككلنا وحواي مهم واي هل خاندين موجود الجيران وحين واسكوده تجلس أرضينا إن قرات كوده وحلا قبل ما أنت مناسبة ده أنا بلنسنا هاي وحين قونيسا الإسراء والمعراج ومناسبات الدينية كاملة وإلا حسنا مضن لنا حس جرو جامعة وحس جرتي ما أنت لنا حسنا ربنا وعي كان المفروض أسبوع صوص عند عليه لكن ودوكتي الأسبوع صوص على شغلة إذا أنت عليها شغلة صوص إذا أنت لو دوكتي إنسان درجة صور مرتين بشان وضن الهجب كان الإسراء والمعراج كده وسكفورية هذا شيء وعسيرة نبوية واي عوانك وحن كده جنّي الإسراء والمعراج دروس وعبر يعني محل لا غرس وضح بحة ولا فائدة عشرة أما عبروين انتبه ودوك تهينو وحياة الإسلام يعني كالمها أوجر العلوس يا حل قاس لصوفرة ديالي مركا فضيلة الشيخ نوجو أسئلة تفاصيلها سين دون شيخ وحوا شيخ الجامعة وشيخ البلد نوايا لا بدر وسويه هاي أنت نشاط هرب نقرأ غير قاعدتين ونشأ معلم كلية الشريعة والقانون تدرسين مدده معلم كاها هذا أنا ولي معلم كاها مركا شيخ الجامعة إيه شيخ البلد بوسكويه يعني فضيلة الشيخ وعن ليه هاي سودو شكرا جزيلا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. runtii jaamacad muqdisho waxaan ku faraxsanahay inaan kala soo qayb qaato ardaydeeda barnaamijkan muxaadarooyinka المحاضرات الهادفة oo ah muxaadarooyin ardayda loo jeedinayo oo ka baxsan mid akadeemiga ahayd ay baranayeen oo ay imtixaanka ku galayeen taas waxay ku tusaysaa jaamacadda inay rabto inay soo saarto arday jawaanibto dhan ka wada dhisan takhasuskiisina baranaya akhlaaqiyadka ardayga jaamiciga laga rabo munaasabaadka taariikhdan islaamiga ku jira soo noolayntooda iyo in wax laga yiraahdo marka aadan idinka mahad celinayaa muxaadaradan aad igu soo qorteen ku saabsan munaasabadaas weyn runtii mucjizo weyn ahayd oo al-Israa wal Mi'raaj inaan maanta muxaadaradaas aan qaadano arintan al-Israa wal Mi'raaj xilliga ay dhacday dad markaas ku cusbaa diinta oo markaas islaamka soo galay yaa tashwiish badan oo lagu furay daraadii ayaa dib uga laabtay oo dacaayad waxa laga dhigay in la yiraahdo say ku dhici kartaa qof ma ka jooga oo xalay ma ka seexday inuu tago baytul maqdis ama masjidul aqsa haddana samaawaadka looga sii qaado haddana isla habeenkii gurigiis uu ku soo laabto subaxdii markuu waaga bariyayna arintaas inay xalay dhacday inuu ka sheekeeyo kuwa waxay ku cabireen aqligooda yani sida uu u sheegayo oo kali ah oo ayna ku darin awoodda ilaahay iyo wixii ay yaqaaneen wax ka baxsan ilaahay inuu sameyn karo kuwa marka arintu waxay u qaateen arin la iska sheeganayo oo iska ciyaar ah markaas ay diintan waa iska ciyaar waan iskaga baxaynaa kuwa ka baxeen dad kale markii loo sheego
way ka istaagayeen balaan hubsanna ayay dhahayeen ilaa Abu Bakr Siddiq oo intii loola tagay waxa lagu yiri ma maqashay saaxiibka waxa uu sheegayo muxuu sheegayaa xalay in la dheelmiyay meelo badan la soo marsiiyay haddana uu inala joogo ayuu sheegayaa hal kalimo uu yiri Abu Bakr Siddiq aw qaalaha arintaas ma yiri markaas ay dhaheen ha uu yiri waa runtiis saasa waxa loogu bixiyay Abu Bakr Siddiq wuu u rumeeyay nabiga arintaas ayada ah marka hadda aynu joogno xilligan ko waxa jira diinta islaamka iyo mabaadi'deeda social mediahan wax walba ku jira dad muslim ah iyo kuwa aan muslim ahayn kuwa diinta ka shakiyay kuwa ka baxay intaas waxaan ka shakeynaa waa Soomaalida oo af Soomaaliga wax ku qorqora waxyaabaha ay ka murmaan oo ay diideen waxa kamid ah arintan oo kale oo ay leeyihiin yaani aqliga ka soo horjeeda marka aqligaaga adiga yaa ku yiri diinta iyo aqliga marka la isgarab dhigo yaani waqti inaga diinta inoo muhiimsan oo tii Sayyidina Ali uu dhihi jiray hadii ra'yi maxay kula tahay diintu ay ahaan lahayd kabaha lagu socdo ee la yiraahdo mesela al-khuffayn wa taqaanana mesela fiqhi ku yaal oo leeyahay baabu al-masx ala al-khuffayn khuffaynku waa iskaasaha oo kale dhulka lagu la istaaga oo lagu la socdaa markii oo la weysiisanayo oo qofka uu khuffaynkaas uu gashto waxa dhacaysa meesha laga masaxo waa intee meeshii dhulka la saarayay laga ma tirtiraayo meeshii dhulka la saaray sida iska ahaanay meesha laga masaxaayo waa meesha kore ee dhulka aan la saaraynin markaas wuxuu diintu hadii ay ra'yi ahaan lahayd oo maxay kula tahay aqligaagu muxuu ku sheegayaa haday arintu ku socon lahayd aqligu wuxuu keeni lahaa meesha mudan in la masaxo ee in wax laga tirtiraa ay tahay meeshii dhulka taabanaysay ee bus iyo wax lagu istaagay iyo taas ahayd inta wax loo qaato in la masaxo la tirtiro oo meesha hoos laga masixi lahaa oo waxa labadan waxa mudan hadii la fiiriyo kor in laga masaxo in hoos laga masaxo waxa u dhow wasakh iyo wax ku dhaga meesha dhulka taabanaysay dhulka la dhigay lama dhihina waxa laga masaxo korka laga masaxo korkaas laga masaxay meesha dhulka taabanaysayna sideeda dhulka u taabanaysayo sidii ayaa weysada qofka haduu korka masaxo khufaynkii qofka oo muqiimka ahna yawmun wa layla يعني habeen iyo maalin ayuuna iska siibaynin oo kor kale uu ka masaxaya haduu musaafir yahayna 3 maalmood iyo habeenadoodii la jiraan ayaa la masaxay waxaan ka wadaa يعني diinteena islaamku aqliga way ixtiraamtaa oo dadka ay la hadasho waa dadka aqliga leh inna fi dhalika laayatin liqawmin ya'qilun li ulil albab dadka aqliga oo saaxiibka haduu qofku majnuun noqdo oo aqliga laga qaado salaadna laga ma rabo soonna laga ma rabo marka diintu ayaa asalka ah aqliguna yani wixii yani markii loo sheego wixii lagu garan lahaa ayuu asaga u yahay laakiin asagu intii banaanka la soo dhigay diintaan ku fiirinayna oo asaga uu noqdo miisaanki oo la yiraahdo aqliga hadaan taa wax u fiirino aqligi uu diido diintaan diidayna asaas ma yaa horeeyo way macna kala hormarsiinta labadu waa muhiim waa loo baahan yahay laakiin say u kala horeeyaan waxa horeysa diinta horeysa haday yani diinta iyo aqli isku hor imaadaan yani inta badan iskama hor imaanayaan maxay yeelay isku meel ay u socdaan laakiin hadii midlan la yiraahdo aqligaas la soo hormarsiinaya waa mid keentay professor jaamacad oo inta shahaado la qaato inta ugu badan asoo haysta yaa wuxuu inkirayaa ilaahay inuu jiro oo wuxuu iska noqonayaa milxid ilaahay inuu jiro yaa sheegi kara miyaan aragnay markaas macalinkaas noocaas oo kale waxa soo muxaadaro jeedinay yaa wuxuu rabaa inuu yiraahdo waxa jira waxa lagu gartaa waa waxa in la arka ay tahay itusoo itaabsi hadii wixii la arki waayo macnaheedu wax jira ma ah markaas wuxuu leeyahay ilaahay miyaad aragtaan hadda inuu jiro maxaad ku cadaynaysaan halkaas uu la aaday markaas maadaama aan la arkin ilaahayna looguma talagelin adduunkan in lagu arko maxay yeelay awoodda bin aadamka indhihiisu inta ay leeyihiin awoodda powerka indhuhu way xadidan tahay xoog lama siinin indhuhu ay ilaahay ku arki karaan la tudrikuhu al-absar
وهو يدرك الأبصار إلهي إنه ما قبطان لما أركر إلهي أصغو شيء إلهي هو أركع ضدك لكن آخر مركي لتغو ضدك أهل الجنة الجنة أي قلان وفد أي أنقنان إلهي يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا مركا متقين تاس مركي إلهي وفد أي أنقنان وحيابها وجعله وحاكم ذا إلهي إلى أركان وهذا اللي قد عيسته اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم إلهي ودادك وجهك أرك دونا أو جنة قال إلهي نقدر يا إلهي لو يديستا مركز أود وحال يسسينا يا مؤمنين تو إلهي كأرك كران لكن أدوك أنت اللي جوجو إنه أود إليهن ما جارسيسنو نبي موسى إلهي الله الله وكلم الله موسى تكليما هو مغلي مرك إلهي بقى يعني أود الشيء إنه دقيسته إلهي بقى الله الله وحكول إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري يعني وخطاب إلهي والله الله مركنا موسى إلهي والله الله سؤال لو يديو السوى جعل إنه ورك أصي الصعود وديرينا وفافاهنا وحال ويدي وما تلك بيمينك يا موسى كعنت هذا محاك جرا مركز وحوري هي عصايا أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى يعني هذا المؤيدين محاق عنك كوجرة محاس كوقبتها هولها يكوقبتها صفة فاسا أشرح لما دين وحالي قعنت محاك كوجرة جوابت محيتها وحالي يجرة أشيدي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا بس جوابت انت صوي وما تلك بيمينك يا موسى هي عصايا لكن محوك سيدري أشرح محاك كوقبتها هي عصايا أتوكل عليها وأن كتير صدا وأن عسكدا وأهش بها على غنمي أرينا وحنود صدا علينا يا أبقذا ولي فيها مآرب أخرى وجدوين كلنا وأن كلاه بل أنتوا إزدبادة فين مروا حالي أنتوا كلجي إمادة وقوم كيسي كسوتي وما أعجلك عن قومك يا موسى ذاتك محاوك صوتك قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى حقيقي جوغان لما دين موقتي maxaad uga soo tagtay wama ajalaka an qawmika ya Musa markaas wuxuu hum ulay wakuwas ala athari raadkii ay ku soo taagan yihiin وعجلت إليك جوابت واتمرك وعجلت إليك ربي لترضى إن أترها لي نقط أيان إلهي عن أسود دقدقي يعني مركا هذا الكاس إلهي والله الله مركا دم وحور إلهي إن أنكو أركان ربا أرني أنظر إليك أرني إتس أنظر إليك عن كفيرية قال لن تراني إلهي وحور إما أركي كرت حيالي إندهاغو أود أيهو أركان هذا موبايلada aan wadanay sawti batarigooda iyo memory-gooda iyo yaay inta ay qaadayaan mid walba meel uu ku ogyahay jira in uu qaadi kara jirto oo saacada yaani uu qaadi karo intaas 4GB 86 in uu qadaran ayaa jira indhaheena marka inta ay qaadi karaan ay arki karaan waa in loogu talagalay inaga inaan isku aragno koonkaan inaan ku fiirino laakiin ilaahi inaan ku aragno memory-geenu ma qaadayo waxa lagu yiri lan taraani ima arki kartid laakiin si aad baratig waxa lagu siinayaa inaad in arki karina dadka iyo buurta yaa adag waxa adag buurta dhagaxa adag adiga dhagax hadii mid dhagax aad testeys buura dad madaxa ku dhufato madaxaaga ma jabaay mise dhagaxa jabaay madaxaaga la jabaay waxa adag marka dhagaxa adag waxa lagu tusaa baratig si aad u baratigareyso buurtan agtaada ah يا نورك إلهي إفتينك إلهي إن يرى كمد يا لوسو آدينايا مركي لوسو آديو بورتو هداي واد كيستو إفتينكاس أو كدعي إنا يسي جوجتو مركاس waa lagu tusaa adigan waad arki kartaa marka lan tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أحياب لا تصي بورتي أكتي سيدة نجح أهيد يا فلما تجلى ربه للجبل بورتي وحجر أيو إلهي أصوى موقضي افتينا لا تسي بورتي ويقنا لا شيء جعله دكا بورتي وي باباضي هو بربر إلهي بورتي وينيد مركي الشيلانتي أي باباضي وبعاد أي نقطي نبي موسى ماشا تاقنا جوكتي ماشا كدعضي قرح وين هدور دعو
qofka ag taagan inuu suuxa dhici karto markuu buurtii ay burburtay wakharra muusa saciqan uu suuxay huwa dhacay caadi wax ma kala ogab muddo markuu meesha jiifay al soo kiciyay falamma afaaqa markuu soo miirsaday qaala subhaanak ilaahay wad nazhanta in lagu arko oo adduunyo lagu arko wax la gali kara ma tubtu ilayka su'aashi aan ku weydiiyay waan kaaga toobad keenay waana awwalul mu'miniin marka yani waxaan ka wadaa yani wax kasta يعني هذا ذكر راهي مثلا ما دام وحي أنا أركيني واحد جرى معه هل كان أصلا ماشي نص على إيتاي معلن هذا الشيء إنه حول مركب ملحد نقطة إلهي مرة ما يسوحوا كيري جريتاك إلهي جو إنكراي أو دليل وقعد جايو لما أركايو أرضي فاهمة لأن أرضي المقطة وفهم بدين أرضي دي وحكير أرضي دقيس معلن كان عقل يسموه جدا أنت عقل يسولجها ما أركتان مركز أنا ما أركن عقل يس wixii aan la arkaynin ma jiro soonamuna dhihin aqligiisa marka ma jiro haduuna qof aqligiisa uu jirin maxay noqonaa majnuun warkiisa ma la qaadan ma lama qaadanayo marka diidmada ilaahay uu diidayo waa wax kama jiraan saa ula socda waana saaso koonkan aynu ku noolnahay wax iska sameeyay ma jiro manasadan yarta hada midalan wala sameey alwaaxidan wala isku dhadajiyay farsamo yaqaan intuu imaado isku dhadajiyay ayadu inta iska sameeysantay meeshan iska manayso istaagin ee wala sameeyay ساس إلهي وحوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون marka waxaan jeedaa arinta al-Israa wal Mi'raaj haday dadka qaal leeyeen say ku dhici kartaa hal habeen intaas oo masaafo in la soo maro wartii aad ka sii jirtay ma adiga waa mucjizo Ilaahay nabiga uu siiyay mucjizooyinka rasuusha Ilaahay uu siiyana wixii dadku ay ka saayeen waxaan ahayn waay hadda midalan dhaqaatiirta waxay yaqaanaan qof xanuunsan daawo in loo qoro haduu Ilaahay caafimaad u qoreen oo ku fiicnaado haduu si Ilaahay caafimaad u qorin oo san fiicnaanaynin laakiin ma dhici kartaa dhakhtar hadda jooga ruux midalan isbitaalka intii la keenay daawo kasta loo qoray la kari waayay dhintay isbitaalada waa lagu dhintaa dhakhtarkii markuu arkay qofkii xanuunsanaa uu fiiriyay qalaf qofkii nafta ka baxday awoodii dhakhtarka intay ku egtahay marka wari maarteen isbitaal inta qof la geeyo qofku uu dhintay dhakhtarkii loogu soo wacay wala doctor uu kaalay ninkii uu dhintay hal sharoobo oo ku noolaado u qor ama hal cirbad oo ku soo istaago ama ku soo fadhiisto kaale ku dur wali ma maqashan ma awoodda dhakhtarku waxay ku egtahay inta uu nool yahay wax u qorqoro laakiin markuu dhinto gacantu ka taagayaa wuxuu u qorayaa warqad la yiraahdo shahaadatul wafaa warqadii dhimashada يعني certificate inuu dhintay intuu ka taabana si aan qofkii oo nool aan loo duugin dhakhtarka wuxuu xaqiijinayaa qofkan markuu taabto xubniis meeshu ka dhaqdhaqaaqay oo warka inayna la shaqeynaynin yaa ulaahay qofkan uu dhintay dadkiisu ha baxsadeen oo ha duugteen mucjizo ilaahay waxay keentay xilli waxa jiray dadku ay caafimaadka aad u yaqaaneen mucjizooyinka rasuusha loo soo dhiibana dadka markaa jooga wax ay yaqaanaan oo ay khatarta ku yihiin wax ka daran aan mucjizo laga dhigaa tusaalaan xilligii nabi Muuse waxa badnaa sixirka aad u yaqaaneen oo ay meel ka gaareen waxyaabo la yaab la sixir mawtu waa inda saraxaad qofku waxaan jirin ayaa yukhayalu ilayhi min sihrihim anna tas'a yani waxyaabo inda saraxaad la sameynaya khatar ay ku aayeen nabi Muuse la keenay ushiisi ayaa dhulka loo dhigay marka usha dhulka loo dhigay wixii ay sameeyeen oo ulaha kala aha oo is socday talqaf way baliqliqaysay way dhamaysay dadkii sixirka yaqaan ee Fircoon uu keensaday markay arkaan sixirkoodii si loo galay waxay ogaadeen waxaan inuu sixir ka weyn yahay oo san sixir ahayn markaasay rumeeyeen waxay aaminna bi rabbil alamin rabbi Muusa wa Haarun xilligii nabi Ciise dadku waxay yaqaaneen caafimaadka dhaqaatiirta badnayd dhaqaatiirtu markay intay yaqaanaan inta qofku uu nool yahay markuu qofku dhinto dhakhtarku waxa kamuuna qaban karin nabi Ciise waxa mucjizo looga dhigay ruux dhintay oo dadku isku waafaqeen u jeeyo inuu dhintay yaa intuu imaado ayaa wuxuu leeyahay qum bi idnillah ilaahay idankiisa ku soo istaag hadda uu dhintay qofkii soo istaagaya dadka qaar waxa laga inay dhahan qof dhintay ma hadda ka hor la soo istaajiyay oo ay diidaan waa la soo istaajiyay maxay ilaahay Allah markii hore abuuray yaa nabiga mucjizo uga dhigay si ay dadku u rumeeyaan inuu ahaa yuhyi al-mauta bi idnillah
ilaahay idankiisa ayuu ku soo nooleyn jiray ilaahay idankiisa waxa uu ku dhacaane qum bi idnillah intuu soo fariisan jiray halka maxaa ku haray caafimaadkii aad taqaaneen wax ka sareeyay ayaa la keenay nabigeena sallallahu alayhi wasallam dadku markaa joogay oo la joogay waxay aad u yaqaaneen luqada carabiga ay fasiix ku ahaayeen markaas waxay leeyeen shucaro ama dad khudbada akhriya oo qabaa'il intay isu imaadaan maka markii la isugu imaado sanadkii mar waxa la jiri jiray suuq leeyahay suuq ukaad oo yaani abyaada lagu tiriyo shicirka qabiil walba waxay hor soo kaxaysanaysaa qof ayaga ka dhashay oo gabayga yaqaan ama khudbada yaqaan oo fasiix ah markaas wuxuu ka sheekeynayaa dhaqamada ay qabiilkaas ay leeyihiin markii taa laga tirtirayo quraanka uu soo deeyo xajka markii la imaado waxa lagu yiri ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا سيدي عاد أبيالكين أشيك شيء جرتين وكل أشيك شيء ما كحيل هاين أو ياشوا ذاك الشيء كانوا فصيحة أي كجرتوا أي أشيك جريم وحيكون فانا مركا إنه فصيحيين أو اللقاء العربي عد كجوه رئيس أي سنجريم قرآن بقى وحلوسه دجي بلسان عربي مبين لقد عربي القرآن لقصه دجي مركز وحال غيري فأتوا بصورة من مثله هل صورة أسوى القرآن كوكلا كان مرة فأتوا بعشر صور مثله طبعا صورة كان مركز يقول إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله على أن يأتوا مثل لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني هذا يسوق كاستان حتى مكيني كران معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي فصيحة هي عربية وهكذا يكون سعود معجزة مركز السينة وحكم لها الإسراء والمعراج وهذا نصعنا مناسبة هذا وحي هاي النبي صلى الله عليه وسلم سادك سنتين مركو جوجي مكة وإسلامك وبلوغا هذا الله اللي بدك مسلمين تعي مركز جوجي بدك هذا الله اللي وحكم لها خباب بن الأرض عمار بن ياسر بلال الحبشي يعني dadkii sidaas ah waa la dhagxaana korka laga saari jiray waa sida hadda ay sameeyaan hindida iyo shiino soo hindida meedan ku arkin qof muslim intay qabtaan oo afarta adin ay ka qabtaan lugaha iyo gacmaha kuwa boolis ah yaa qofkii oo ay sa u haayaan ay bakoorado ula waaweyn ay ku tumaayaan qofkii muslimka ah waxaan soo xusuusanaa marka bilaal oo leeyahay dhagxaana korka laga saaray asna wuxuu leeyahay ahadun ahad تي نفتر كذا صون نقطي القوم هم القوم كأنهم قريش يعني وابا يجوا قريش أو كسي وحول عذاب جرت قريش وضدك مسلم كيو عذاب جيران أيه هذا مسلمين تلو عذاب أيه مركا يعني الإسلام معراج كاس وحول إيمان دونا مركا حلي لبعتاس لقى صوب بحي لكن وحاد عضي سنة جذيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لبطير ووين ونلش يسوي وين وقف دي لبقف أي مهم وأهم نلشيس أي كدنتين وحاد انتي أذيركي أبو طالب يحاسكيسي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سنة قديه لبضوا بدنتين لبضوا وكلا قابل سنايين الرماها الدبدة يرميها قده الرماها الدبدة وحي كسابسن أو قبيلك قريش اللي يكواس إنك السوء لبايين النبي لكن هدنا مدح أبو طالب وأضي قريشيات wax badan ayay xeerin jireen ay iska dayn jireen marman intii u soo dacwadaan waxay dhigi jireen wiilkan adeerka u tahay oo asnaantii aan caabudi jirnay wax ka sheegaya wiilkan ama naga qabo ama anaga iska qabanayna wafdi intay u soo diraan markaas intuu nabigu u yeeray wuxuu ku yiri adeerow qoomkaaga ayaa ay imaadeen waxayna ileeyihiin ama wiilkaas anaga iska qabanayno dilayna ama waxa uu wada naga joojiyo waxaan aad wado aniga iyo adiga labadeenu difaac ma geli karno oo qoomkan dhan iskama celin karnee fabqi calaya wa ala nafsik naftaada iyo naftayda baaqiyeel oo wax aan qaadi ka wala tuhammilni min al-amri ma la udiq wax aan qaadi karin korka iga saarin qoom dhan lama dagaali karay waa keligay diintan aad sheegays iska dhaafayda dhan saan u nabad galno markaas wuxuu adeer masaasay kula tahay wallahi law wad'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari على أن أترك هذا الأمر ما تركته. هالقراءة هذي سوقيان ما بسوقين كرانه. ويمديك تيجا ساران ضيح هذي سوقيان ما بسوقين كرانه بدح تيجا ساران. دين تانينا نسكت دايان أي سوي يلايان والله إنا نسكت داينيني. أضوء أم إسكرع أما أنيجا. مركو أركسونا بيقول لك جيني الدين تيسا. يا حكومي يا ذر هوش هذا وضع عد أنكود ليبي أو حكاك قاضي كرت مجرته هوش هذا وضع. بس الحمد لله هو إلى الجري مركب. odaygiisa u ilaalin jiray aadintay arimaha gudahana waxa u joogay khadiija bint khuwaylid
oo nabiga sallallahu alayhi wasallam xaaskiisa ahayd oo aad u garab istaagtay waxyiga markii lagu soo dejiyay ugu horeysay nabigu wuxuuna aqoonin baa lagu soo dejiyay ilaa hadda ka hor muuna aqoonin waxay ku soo dega malagii ku soo dejiyay oo u keenay aayad ugu horeysay iqra markuu yiri waxoogaa uu akhrin waaye waxoogaa ayuu yara ceejiyay markaasuu u akhriyay quraanka markii uu ka tagay markiiba intuu soo laabtay ayaa wuxuu imaaday gurigiisa markaas wuxuu ku yiri zamiluni iduuduba laqad khashiitu ala nafsi waxay ku tiri khadiija radiyallahu anha kalla wallahi ma yukhzika allah abada ilaahi ma ku hoojinaaye tilmaamaha aad ku tilmaaman tahay qof ku tilmaaman ilaahi ma hoojinaayo dib ma gaarsiinaayo innaka la tasilu rahim qaraabada xiriirisa saasalaad qofkii qaraabada xiriira ilaahi u kaalmeynaayo martida ayaad soortaa ilaahi ayaa u kaalmeeyo qofkii martida soora xaqaad garab istaagtaa sidaas qof dhibaato ma gaarayse khayr baad heshay isdaji marka way dajin jirtay markii la yiri yaa ayuhal mudaththir qum fa anzir oo diinta loo diray inuu faafiyo oo la soo beeniyana suuqu soo wareegaya markaas hal qof oo soo rumeeyo weyna way soo caynayaan way soo dhagax tuurayaan way iska soo noqonaa gurigu imaana markaas qalbiga u qaboojineen iska sabir waa laga baxaa arintan marka waxa uu ahayd yaani dajiye ayadan ilaahay wuxuu ugu abaalmariyay in nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu yiri malaku jibriil wuxuu ku yiri khadiija waxaad gaarsiisaa rabbigeed ayaa soo salaamayay ilaahay ku soo salaamay intee laagta heblay ama hebelow ilaahay baa ku soo salaamayay waa meel weyn waxa loogu bishaareeyay bibaytin guri waxa loogu bishaareeyay jannada oo buuq iyo qaylo aan lahayn sababta loogu bishaareeyay waxay tahay buuqi iyo qayladii nabiga ay ka tirtiri jirtay ay ka qaboojin jirtay ayaa janno loogu bedelay xaaskiisa khadiijana ayadana way ka dhimatay sanadkaas maxaa soo raacay marka adeerkii oo dhintay oo arrimaha dibadda ka ilaalin jiray iyo xaaskiisii oo markuu soo rafaado guriga markuu ku soo laabto qalbiga u qaboojin jirtay ayadana way dhimatay sanadkaas waxa loo bixiyay caamul huzni sanadkii murugada nabigu wuu murugooday maxaa yeelay banaanka darbiga ku soo banaanaaday keligii iyo quraysh isku soo bax markaas quraysh waxay ku sameysay wax ayna horay ugu sameyn jirin markuu adeerkii Abu Talib uu noolaa markay rafaadiyeen yaa wuxuu isiri meeshan ma isaga tagtaa lacalla inaad meel kale oo magaalo kale ah oo dadku garab istaagay aad ka heshaa laga yaabaa meeshan way kugu adkaatay bal isaga tag wuxuu ka haystay mawlaahu Zayd ibn Haritha wuxuu ina keen bal aan meel kale raadsanay meeshan wayna dhibtay maka way ka baxeen waxay tageen magaalada Taif markaas waxay la kulmeen saddex wiil oo walaalo ah oo magaalada markaas xukumayo madax u ahaa yaana meesha ka bilaabaan doonta xaafad ka soo bilaabo dadka madaxda ay maqlaan xaafadaas waxa laga tashkiilinaya oo laga sheekeynaya intay markiiba ciidan u soo diraan la qabana si ina saas u dhicinba madaxdii saddexda ahayd meesha ay joogeen ayuu ka bilaabay haday saddexda marka hawsha la qaataan magaaladuna way raacaysaa saddexda marka maxay ku yiraahdeen tula fariis wuxuu ku yiri waxaan rabaa inaad fursad isiisaan magaaladan aan ku joogo oo aan fariinta ilaahay ku faafiyo markaas ay jees uga baxeen mid wuxuu ku yiri adii markii lagu soo diray ilaahay cid uu soo diray mu waay mid kale wuxuu ku yiri hadii adiga ba lagu soo diray ilaahay saa uu talagalay kacbada in la jeexjeexo marada korka ka saaran kacbada fiyaabal kacba marada korka ka saaran in la jeexjeexo asaa ilaahay ugu talagalay maxaa yeelay ma difaaci kartid markaas maxaa laga soo diray mid ka saddexaad wuxuu yiri kuwan wayba kula hadleene ma istaahishid inaan kula hadlo barnaamijka dibka la marsiin fiiraadi markaas wuxuu ku yiri hadaa saas yeesheen waan iska tagayaaye bis idhaafale qurayshna yeena maqal inaan idin imaaday qof kalena ha u sheegina waan iska baxaya maxay haday quraysh ogaato ama ay maqasho waxay leedahay hadda ciidan noo doonatay mi anaga magaalo kale noo aadib dhibaatadii ay ku hayeen ku sii laban laabayaan wuxuu marka ii qariyo arintayda waan iska baxaya shibiga dhah hadaa saan ila hadasheen ma ina sameeynin magaaladii intay galeen yaa dadkii waalaa iyo caruurtii ayay ku direen waxay dhaheen ninkaas ma u jeedaan magaalada dhagaxa looga saaro markaas laba saf ayay u noqdeen laba saf ay u kala safteen nabiga safkaas u dhex maraaya safkan markuu iska fiiriyo dhagaxa ay soo tuuraan oo ka gabay isleeyahay kuwan dhinacan jooga dhagax ku dhufanaay kuwan markuu soo fiiriyo kuwana ku dhufanaay kuwan markuu soo Zaydna wuxuu isku dayaa dhagaxaanta nabiga ku hoobanaysa inuu asagu isu dhigo bal intuu ka yarayn kara nabiga waxa ku dhacay
sidaasay magaalada uga bixiyeen meel intuu iska fariisay geed hoosti yu alla bari ducaa yu dirsada ilaahay yu toogay wuxuu yiri allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwin mallaktahu amri iyo dadku sida ay yaraysteen oo dhibaatada ay gaarsiiyeen ilaahay adiga ayaa dadka u naxariista gaar ahaan dadka la tabardaraystay ee awoodda loo sheegtay adiga ayaa rabbigooda anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi dadka awoodda loo sheegtay ilaahay adiga ayaa rabbigooda anigana rabbigayga laakiin wixii soo gaaray oo aniga igu dhacay waxba ka soo qaadi maayo ilaahu caafimaadkaaga ayaa waasiciya ilaahu raali ahaanshahaaga ayaan rabaa haddaan mar adoo ii caraysnayn waxaan u aabayeeli waxaan igu dhacay ma jiro markiiba waxa uu yimid malagii oo buura mas'uulka ka ahaa wuxuu ku yiri waa la soo diray amar la soo siiyay magaaladan saa ku gashay laba buurood ay hoosteeda ku taala hadaad rabtid labada buurood aan isku dhufanaya ayagana dhaxday ku jiraan way ku baaba'een hal qofna kama fakanaay ee amarkaas isi aan baabi'iye markaas nabi wuxuu ku yiri maya arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a waxaan rajaynayaa dhabarkooda ilaahay inuu ka soo saari doono dad ilaahay caabuday yaan la laynin barnaamijka markaas malagi wuxuu ku yiri sadaqa man samaaka raufan rahima ilaahay ku bixi uu naxariis badan yahay run ayuu sheegay nabigu naxariis badnaa sallallahu alayhi wasallam bas uu iska soo noqday zayd wuxuu rasuulku ilaahay ma iska sii socono maka man ku noqonaynaa markaas waxa uu ku yiri waan tagayna makan ku noqonaynaa maka markay inay ku noqdaan oo ay galaan ma u suurta galayso wuxuu yiri waxaan sameeynaa odayaasha Quraysh mid kamid ah aan magangeliyo weydiisanaynaa inayna ilaaliyaan nin leeyahay al-Mut'im ayay arinta u dirsadeen wuxuu yiri inaad magangelisaan rabaa bas waa yuhuda asaga iyo wiilashiisa soo baxeen nabiga banaanka uga hortageen ayagoo seeftoodii wata nakeenay dhaheen anaga ma ka idin gelinayne ma ku sidii ku soo galay kacbadu dawaafay markaas waxay ku yiraahdeen Quraysh ninkii ayagoo la hadlay ayaga ahaa amujirun anta am mutabi'un miyaad raacsan tahay mise waad magan gelisay oo kaliya wuxuu yiri waan magan geliyay ma raacsani laana dooda waan raacsanahay oo muslimaanahay muslimiinta ciqaab ay qayb ka noqonaa asna oo lagu daraa laakiin nin ayaga ka tirsan oo dhaqan ay lahaayeen oo ah qofka hadii magan geliyo la siiyo qofkaasi ayaa lagu ixtiraamaya qofku magan geliyada si lama taabanayo waa dhaqan wanaagsan oo ay lahaayeen diinteenuna ay xoojisay oo qof hadii qof muslim uu magan geliyo magantaas waa la qaataa gabdhahan haday midalan qof magan geliyaan yaani waa magan geliyadooda qofkii ay magan geliyeen waa laga leexana waa gabadhii la dhijirtay taas waxay noo tusisay Hani Sayyid Ali la dhalatay nin gaalada kamid aha oo muslimiinta dhameeyay oo dhibaato badan geystay yaa intuu cararay buu Hani wuxuu yiri magantaadan ku jira markaas Sayyid Ali wuxuu damcay inuu magantaada ka soo baxsado oo yiraahdo ninkii saan noo galay ma had magantaada galay nabiga sallallahu alayhi wasallam u tagtay waxay ku tiri saasa jirta Sayyid Ali waa ka saas sameynaya anna ninkaan magantayda ayuu ku jira markaas nabiga wuxuu ku yiri ajarna man ajarti ya Hani cidii adigu aad maangeliyo siisay annaguna waan siinay حديث النبي يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم يعني المسلمين تؤس احتراما marka waa dhaqan fiican carabtuna way ilaahin jireen adoo ninkii wuxuu yiri aniga ninkan waan magan geliyaa laga leexdo nabiga sallallahu alayhi wasallam muuna hilmaamin arintaas loo sameeyay ee wanaaga ah oo ninkaas uu sameeyay maalintaas uu nabiga aad u dhibaataysnaa markii dagaalkii Badr uu dhacay oo maxaabiis laga qabtay gaalada yaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkii odayga ahaa hadii uu noolaan lahaa waa ninkii magan geliyay haduu noolaan lahaa oo maanta uu igala hadli lahaa maxaabiistan Quraysheed uu dhilaha maanta ana irgaa Qurayshan ka socda maxaabiistan inaad Quraysh u sii deysaan raba haduu idhii lahaa waan aqbal lahaa warkiis yani qof haduu wanaag ku galo waa loo gudaa wanaaga yani qof wanaaga inkira qof ma ah marka diinteena waa diin sharafeed qofka ihsaanka dadku u sameeyo ihsaana lagu jaaziyaa adi markuu maka ku soo laabtay maangeliyaasna uu ku soo laabtay dhibaatadii Taayif ku soo dhacdayna ay taalo halkaas waa marka al-Israa wal Mi'raaj meeshu ka imaanayo oo ah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu helay fariin xaq Ilaahay uga timid oo ah hadii dadka dhulka jooga isaa ku galeen oo ku soo dhaweyn waayeen meel laga soo dhaweynaya lagu tusaayaa soo bax wala kixay halkaas aayada quraanka waxay imaanaysaa subhanalladhi
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانه وحلوله waxay tahay dadku wax yani ay sida caadiga ee muuqata ay u fahmi karaan ma ah qofku ilaahay iimaan siiyay ma ogeey qudra ilaahiya meeshan taala marka subhana alladhi asra bi'abdi allah adoonkiisii dheelmiyay ayaa nazahan wuxuu ka dheelmiyay min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa masjid al-aqsa la geeyay waxa loo kulmiyay rusushii ilaahay ee ku horeysay imaam ayuu u noqday taas waxay daliil u tahay duruusun wa cibarti way moogtahay nabi sallallahu alayhi wasallam nabiyaashii ka horeeyay inuu imaam u noqdo waxay macnaheedu tahay hadda soo ma taqaanaa wax la yiraahdo maamulada markii laga hadlaayo xil wareejin qof hore u joogay oo qof cusub meeshii loo magacaabay oo xilkii uu hayay iyo alaabtii uu hayay midkan cusub hadda loo magacaabay ku wareejinaya macna diimo hore soo jiray rasuul ilaahay uu soo diray ayaa jiray oo aan wada rumaysanahay rusushaas iyo kutubtoodiiba laakiin hawsha hadda rasuulka lagu ogyahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayaa lagu ogyahay saasana wuxuu yiraahday nabi ciise iyo nabi muuse ay joogi lahayn hadda inay anaga raacaan ma ogeey wada kale u furaan lahayd ma jirto maxay leeyahay hawshan aakhiru zamanka ugu dambeeyay rasuulka ugu dambeeyay waa asaga ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نبي السالو ختمه رسالة دي سمرك ورسالة دي ألو ختم رسالوينك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي أنا قد سان مثل كي رسول شيء يقول مثل كودو وحول لم يدرسي مثلا سيد قف بنا بيتا سيد قف لسي جري وجري قرح بدنيسي سفع نقول لسي إلا موضع اللبنة هل بلكيتي مال بس أياك بنام أنت كل جري ولسيه halkaas bulkeetay meesha ka banaan fa ana tilka labina ana waxaan noqday halkii bulkeetay dhimana ana la igu xiray gurigiisaas islaamki oo dhameystirmay marka diimi oo dhan marka saasay diinteena igu soo urureen inna ad-diina 'inda allahi al-islam imaamu u noqday ka bacdina nabiga waxa uu bilaabanay laba qadiyood waaye qadina waa al-israa qadina waa al-mi'raaj al-israa waxa waaye waa min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa معراجكنا وحو يحي من المسجد الأقصى ayaa laga qaaday ila samaawaat al-ula samada kor loo diray markaas samada kor markii loo diray sama kasta markuu garaaco oo jibriil la socday waxa la fastaftaha jibriil hala iga furu dhaha markaas waxa la man waa kuma markaas waxa jibriil markaas waxa la waman maaka yaa kula jira markaas waxa muhammadun markaas waxa la waqad ursila ma la soo diray oo inuu halkaan imaado ma la soo bixiyay markaasuu samaawaadki ambiyadii ilaahay oo samaawaadka loogu diyaariyay yaa ka hor imaanay ambiyada isugu jira kuwa walaalo ay yihiin iyo kuwa asaga waalid u ah midka ay walaalo yihiin oo ay siman yihiin wuxuu ku dhahaa marhaban bil akhi salih wa nabiy salih midkii kale asaga waalid u ahna wuxuu leeyahay marhaban bil ibn salih wa nabiy salih waxa marka waalid asaga waa nabi ibraahim iyo nabi aadam waalidkiis inta uu sii arkay markii ambiyadii uu dhaafay samaawaadka sare toddobada sano markuu ka gudbay ya malaku jibriil oo la socday wuxuu aan halkan ku haraaya inta dhiman adigu sii soco markaas wuxuu ku yiri meeshan miya meel oo saaxiibkiis uu kaga haro miya meeshan loo kala tagay laan jibriil aa waday markii hore dhan meel oo aqooni hada u sii soco meeshan saaxiibkaga hare wuxuu ku yiri wama minna illa lahu maqamun معلوم دان ملائكنا هي قف walba meel uusan dhaafi karin ayaa jirta marka fiir malaa'iktu meel ayna dhaafi karin nabigi dhaafay waxay ku tusaysaa ilaahay agtiisa karaamada iyo sharafta uu ku leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhaaf markuu dhaafay samaawaadka kore ayuu tagay israan waxa ka hadashay subhanallahi asra bi 'abdihi laylan mi'raajka oo laga bilaabo masjid al-aqsa ila samaawaadka la geeyina aayada kale ka hadlayso waa suurada wan-najmi idha hawa ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني وحلا يابلو سو أركالي
marka min al-israa'i ila al-mi'rajna waa kaas oo hadii marka yaani lidin weydiiyo maxaa cadeynaya in halkan la dheelmiyay halkan laga sii qaaday labadaas aayadood ayaa quraanka ka hadlaya oo subhanallahi asra oo ah min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa iyo mi'rajka oo suratul wan-najm idha hawa oo leeyahay laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra waxyaabo la yaab leh ayuu soo arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam kadib uu soo gadoomay samada lixaad markuu soo maray nabi Muuse joogay wuxuu ku yiri maxaa aad ilaahay kala soo kulantay wuxuu konton salaadood ayaa la ii soo dhiibay oo ummadda lagu soo waajibiyay wuxuu ku yiri in badan ayaa reer banu Israa'iil anigu la noolaa ummaddaadu ma qaadi karto konton salaadood intaad rabbiga ku noqoto fas'alu takhfiif ilaahay inuu ka fuudeeyo weydii wuu noqday saaqsoontiin shana laga soo dhimay 45 looga dhigay haddana nabi Muuse u imaaday waxa uu yiri 45 way badan tahay noqo wuu noqday adu sidii loo kalba u sii noqonay u soo noqonay waxa laga dhigay 5 salaadood 5 salaadood marka ficil ahaanna waa 5 salaadood ajir ahaanna kontonkii salaadood ee hore wuxuu ilaahay u diyaariyay oo qofkii konton salaadood tukan lahaa ajirkii la siin lahaa oo meel loo dhigay ayaa waxa lagu siinayaa 5 salaadood soo naxariis marka ma marka man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha baad midalan 5 waxaad ku dhufataa 5 ku dhuf waa konton 5 salaadood waxa u dhigmaan marka konton salaadood marka konton salaad maxaad u malay in loo diyaariyo qofkii konton salaad tukan lahaa ajir badan u heli lahaa ajirkii kontonka lagu heli lahaa yaa 5 salaad lagu helayaa marka taas waxa duruus aan ka faa'iideysan waxa kamid ah ahmiyada ay salaadu leedahay maxaa yeelay waajibaadkan kale ee islaamka dhulka lagu waajibiyay soonka oo kalmadaada inoo soo socda yaa ayyuhal ladina aamanu kutiba alaykum nabiga oo dhulka jooga leeyay nabiga intii la qaaday samaawaadka la geeyay soona lagu soo dhiibay lama dheen waajibaadkaas oo dhan dhulka loogu sameeyay oo loogu sheegay laakiin salaada samaawaadka loo qaaday halkaas looga soo waajibiyay ahmiyada ay salaadu leedahay ayay ku tusinaysaa marka duruusta kale ka faa'iideysan waxa kamid ah dhowr xabaan ka soo qaadanaynaa dhibaato kasta oo jirta inaan la isdhiibin nabiga soo caamul xusni muuna gelin kadibna uu ka baxay marka inaga Soomaaliyeed nahay 30 sano iyo ka badan caamul xusni ku jirnaa dadkeena islaynay dadka qaar intay niyad jabaan waxay dhahan Soomaaliya intay dawlad xoog leh oo fiican oo nidaamsan oo nabad caam ah dadku dhan iswada dhex maraan oo taas ma la gaari doonaa waa la gaari doonaa dadka qaar waxay ku leeyihiin ma dhici karto maxay hadda wixii waaqac joogay akhrinayaan inaga marka hadaan muuminiinahay waaqacaas markaas horta taagan kaliya wax lagu ma dhiso nabi sallallahu alayhi wasallam markuu hijroonay asoo god ka soo baxay Abu Bakar idhuma fil qaari إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا أيها waxa soo eriyay Suraaqa bin Malik oo raba 100 neef oo geel oo Quraysh ay tiri qofkii nabiga soo sheega ama dhimasho ku soo sheega ama nolol ku soo sheega 100 neef oo geel la siinaya asoo boolka raadinaya iyo inuu qabtuu rabay markuu soo dhawaadaba farastan sima la kufta ulku gala hadana nabigu sii socdo hadana farastii la kufta ninkii eriyanay nabiga markii dambe wuxuu ku yiri waxaan ku sheegaa ka waran hadaan ku qoro warqad oo boqorada waqtiyaas jooga boqorkii ugu xooga badnaa oo Kisra la dhihi jiray ilaa Furs iyo Room laba dawlad baa jiri jirtay kii Kisra boqorkii Kisra taajka madaxa u saaran iyo dahabka meeshiisa yaala hadaan ku siiyo ka waran marka dad is weydiiso xaaladda nabiga marka uu ku sugan yahay iyo ballanqaadka uu sameeynayo inta isu jiraan aad ay u kala fog yihiin boqorka adduunka ugu xoog badan kursigiisaan ku siina maanta hadii lagu dhameeyo Mareykanka iyo Ruushka awood sheeganay hadii la warqadan ku qoraa madaxweynaha Mareykanka aqalka cad waxa yaalo dhan lagu qoraa ee qordaad ah oo hadda xaaladan ay joogto waa la sheegaysan meeshaas ma sidaas oo kale ah Kisra lagu qoraa ka warna Allah bas waa loo qoray Abu Bakar oo qoray nabiga qoraa kuma aqoonin Abu Bakar oo qoray Kisra jijimihiisa iyo taajkiisa iyo hal siiyo Suraaqa bin Malik warqadii uu qaatay uu iska noqday xilligii dambe ee Amiir al-Mu'miniin Umar ibn Khattab alla qabsaday ama la furtay meeshii uu Kisra joogay markaas taajkiisii iyo dahabkiisii alla soo qabtay waa la haayab markaas waxa la aaway Suraaqa bin Malik ilaa hore loo sheegay inuu warqad haysto warqadaadi la soo bax warqadiisu la soo bax waa lagu wareejiyay marka diinteen waa diinu amal waa rajo waliba hays dhiibin adin aamul xusni aan ku jirnaa aamul xusni aan ka baxaynaa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran culayska safadeeda ka dambeeyay midda kale waxaan kala duruusi ka faa'iideysanaynaa masjidul haram quraanka lagu sheegay masjidul aqsana quraanka lagu sheegay hadda ka warrama hadii aad maqashaan
masjidul xaraam oo kacbadii ah waa la qabsaday kuwa aan muslim ahayn intay ku soo duuleen ayay la wareegeen masjidul xaraamki xajka iyo meelihii la aadi lahaa iyo way idin dhamaatay muslimiintu maxay sameeyeen masjidul xaraam hadii la qabsado waxay dhaheen ruux yu naga harin ruux bin aadam oo muslim ah aan ka xoreyna gaalada qabsatay masjidul xaraam saas al dhila hadaa saa dhihi lahaydeen haddaba masjidul aqsa aaway waa la haystaa ahmiyada uu masjidul xaraam leeyahay ayuu masjidul aqsa leeyahay maxaa yeelay quraanka isku xiray subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa idan masjid al-aqsa xoreyntiisu muslimiinta oo dhan laga rabaa qof kastoo quraanka akhrinaya laga rabaa si aan loo xoreynin kuwa waxay rabaan inay ka dhigaan dhulka carabta laga haysto si ay u koobaan ay dhahaan masjid wuxuu ka maqan yahay carabta wadii leeda carabta bas laga rabaa dadkan carabta ahayn ee muslimiinta ah oo caalamka maanta Indonesia iyo Malaysia iyo Pakistan iyo maxay dhaayeen anaga maxaa naga galay carab meel laga qabsaday marka qadiyadu qadiyo carab ma ah waa qadiyatul quraan المسجد الحرام مسجد الأقصى محاد اهتمام سيناس المسجد الأقصى قرآن كان نو شيغي قرآن كان وحو نو شيغينا نفتينا يا قرآن وحو شيغي يعني قرآن وحو شيغي او مساجداس ايا كمهمسن وهذا لعبسين هذه لعبسنا نفط كل وينتاينا حال يا اخي انا ما حقيقه قال المسجد الأقصى ايو افاريسي ما حقيقه اخرنا marka soo gaar suuratu nahl marka aad dhamayso bismillaahir rahmaanir al-kahf la kabla wadiga suuradana meeshan ku jirtee ma suurada waan ka booda ma dhahe ma ka boodayst waa in akhriso way subhana alladhi asra adiq hadad asra akhrisidna masjidul haram waa shay masjidul aqsa waa sheegay taas waa midda kale dowrka yaani ummadan saaran ilaahay ummadan wuxuu ugu talagalay muslimka ah caalamka inay idin hogaamiso وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله مركا يعني كل يرين إلى أنه حقيقة هذا ذكرى حسوس وتقانين هراب برتين لكن هذا تاريخ ذا إنه حسوسية وحبايك كل لنا يساع مركا هذا اللي كلمة علنا يا وقت يعاد أهرتين هنا كقيب قادتان محاضرة الإسراء والمعراج maamulka soo qaban qaabiyay jaamacadda Muqdisho na aadan ugu mahadcelinayna ayagana insha Allah ta'ala marar kale ayaan munaasabado sidan oo kala ayaan isugu imaan doonaa haduu Ilaahay yiraahdo maanta intaas ayaan ku joojinayaa inta kalena Ustaas Muuse ayaan si dhamaystiri doonaa hada billahi tawfiiq